kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idilkiinba meel waliba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada qaabka ugu fudud ee aad ku ogaan karto qofka been kuu sheegaya iyo waliba siyaabooyin kala duwan oo aad ku ogaan karto marka uu qof been kuu sheegayo. fiirin kaliya kuma garan kartid qofka beenta kuu sheegaya, laakiin khibrada cilmiga nafsiga waxay isku dayayaan inay la yimaadaan xeelado kale oo shaqayn karta. tusaale ahaan, booliska ayaa aaminsanaa in wiil 17 sano jir ah oo lagu magacaabo Marty Tankler uu u muuqday qof degan kadib markii la arkay hooyadiis oo toorey lagu dilay iyo aabihiis oo dhaawac uu markii dambe u dhintay la gaarsiiyey xilli ay ku sugnaayeen gurigooda ku yaala meel jasiirada. saraakiishu ma aysan rumaysanaynin sheegashadiisii ahayd inuusan dembi lahayn, wuxuuna dhammaystay 17 sano oo xabsi ah oo uu ku mutaystay dilalkaas. kiis kalena dambibaarayaal ayaa aaminay in wiil 16 sano jir ah oo lagu magacaabo Kevre Descovig uu u muuqday qof argagaxsan, diyaarna u ah inuu caawiyo dambibaarayaasha kadib markii arday ay dugsiga sare isla dhiganayeen lagu dilay ceeji. isaga laftiisa waxaa lagu xukumay inuu been sheegay, wuxuu xirnaa ku dhawaad 16 sano. labada wiil mid ma uusan murugeysnayn, kan kalena aad buu u murugeysnaa. hadda sidee ayaa labadaas dareen ee kala duwan loogu ogaaday xaqiiqda ku saabsan dembi qarsanaa? xaalku sidaas ma ahayn sida ay sheegtay Maria Hardwick oo ka tirsan khibrada cilmi nafsiga ee daraasadaha ka sameeya macadyada cilmi baarista dembiyada ee jaamacadda New York. labada ninba waxaa goor dambe la ogaaday inay ahaayeen dhibanayaal si kam ah loogu maleeyay dembiilayaal. dhaqamada kala duwan waxaa dadka lagu eegaa habdhaqanka ay u hadlayaan iyo hadallada ay adeegsanayaan si loo qiyaaso beentooda iyo runtooda. ha yeeshee cilmi baarayaasha caddeemo ku filan uma aysan helin arrintan ku saabsan in la eego dadka habdhaqankooda hadalka, inkastoo ay 10 sano cilmi baaris ay wadeen. mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee aan wajahno waa in qof walba uu og yahay sida sheegista beenta ee u shaqayso, ayay jiri Hardwick oo qayb ka ahayd daraasad lagu baaraya astaamaha lagu garan karo qofka beenta sheegaya. khibrada cilmi nafsigu waxay muddo dheer ogaayeen siday u adag tahay in si dhab ah loo garto qofka aan runta sheegaynin. sanadkii 2003 Bella Dibola oo ku takhasustay cilmiga nafsiga haddana ka howlgashay jaamacadda California ee magaalada Santa Barbara ayaa iyada iyo howlwadeennada kale ee la shaqeeya waxay ururiyeen calaamado badan oo laga dheehan karo qofka marka uu been sheegayo. waxaa ka mid ah go'goynta hadallada, neefsashada meelaha aan ku habboonayn, hadallada qiyaasta laga dhex fahmayo, hakadyada qayrul caadiga ah iyo weliba waxyaabo kale. waxay isbarbardhig ku sameeyeen sida ay astaamahaas u muuqanayaan markuu qof run sheegayo ama been uu sheegayo, inkastoo ay jiraan waxyaabo aysan bini'aadamka qiyaasi karin saxdooda iyo weliba qaladkooda. aqoon-yahanadu waxay xitaa sheegeen in qalabka beenta lagu garto ee la sameeyey qarnigii 20aad gudihiisa uusan ahayn mid wax walba sida saxda loogu ogaado. cilmi-baarayaasha waxay soo jeedinayaan in booliska iyo dembi-baarayaasha laamaha amniga ay ka gudbaan xeeladihii hore ee ay u adeegsan jireen soo saarista xaqiiqda. waxay ku talinayaan in la badiyo adeegsiga sayniska halkii qiyaas iyo weliba qiimeyn lagu socon lahaa marka lala tacaalayo dembiyada aan caddeymaha lahayn ee jahwareerka keena. Hardwick waxay rajeynaysaa in booliska loo sameeyo tababaro ka caawin kara inay isticmaalaan xeelado ka fiican kuwii ay ku dheganaayeen. Mike Vallon oo ah sarkaal horey ugu tirsanaan jiray waaxda dembibaarista ee ciidanka badda Mareykanka ayaa Hardwick ka caawinaya in laga shaqeeyo tababarista dembibaarayaasha si aan cadaalad darro loogu xukumin dad dhibanayaal ah. Mr. Vallon wuxuu rajaynayaa in mustaqbalka la helo xeelado la isku halayn karo si aan dadka dembilaawayaasha ah noloshooda lagu ciyaarin, sida ku dhacday Kevre Descovig iyo weliba Marty Tankler. haddaba haddii aad warbixintan wax badan ka fahantay oo ay ku soo jiidatay like noo saar, sidoo kale fikirkaaga ka dhiibo siina sheer garay. tan iyo kulan dambe, ammaan Allah.